qalkan waxaan ku arki doonaa qodobka labaad ee principle of design ee ah hierarchy waxaa dhihi karnaa waa controlka informationka muuqda in la isku hagaajiyo ama la habeeyo si loo ablaagareeyo sida ay u kala sareeyaan oo u kala muhiimsan yihiin. hierarchy si kooban waxaa dhihi karnaa waa kala saraysiin in la sameeyo designka markaad joogto. hierarchy wuxuu hagaa designka sida ay u arkaan dadka. hierarchy waxaan u isticmaali karnaa habka ay u muuqanayaan waxa aan rabno sida ay u kala muhiimsan yihiin iyo midka aan rabno inuu noqdo midka koowaad, sidoo kale midkaan rabno midka labaad inuu noqdo oo la arko, iyo sidaas si lamid kuwa kalena sidaas ku sii wadi kartaa. markii la sameynayo hierarchy la wada arki karo waa muhiim in la iska eego sababta oo ah waxaa la isku hayaa designka dhammaantiisa si waxtar leh. haddii loo isticmaalo waxa uu noqdaa mid wanaagsan haba ahaado mid fariin adag. markii la joogo designka, hierarchy waa wax clear ah oo maskaxda dadka horay ka degaya. waxaa loo muujin karaa habab badan oo ka mid ah scale, color, contrast, space, alignment, shape iyo form. sawirkan noo muuqdo wuxuu noo sheegayaa tusaalayaal badan oo aan arki doono. tusaalaha koowaad haddaan aragno waa hierarchy oo scale. waxaa haysanaa lines kaas oo ka bilaabanayo thick ama qayb oo dhumucdeedu weyn tahay ilaa iyo qaybta u hooseysa oo thin ah dhumucdeedu yar tahay. marka waxaa dhihi karnaa kala saraysiintan waxay ka bilaabanaysaa qaybta kore ilaa iyo ay ku tagto qaybta hoose. hierarchy-an waxaa u isticmaalnay thick iyo thin anagoo isticmaaleen qaab scale ah. marka scale waxaa dhihi karnaa yani waxa in cabir ahaan loo isticmaalo, la weyneeyo ama la yareeyo. tusaalaha xiga waa kii hore oo scaleka u isticmaalnay, laakiin waxaa markaan isticmaalaynaa hab color ah u isticmaalaynaa. marka hab color marka u isticmaalayno wuxuu ka bilaabanayaa qaybta hoose ee thinka, sababtoo ah colorka wuxuu ka bilaabanayaa asagoo dhaag ah qaybta hoose, yani asagoo tiq ah wuxuu ka bilaabanaya qaybta hoose ilaa iyo qaybta kore si loo tago. marka hierarchy-an waxaa u isticmaalnay colorka markaa isticmaalana wuxuu ka bilowday qaybta hoose ilaa iyo qaybta sare iyadoo laga tagayo. tusaalaha xiga hierarchy oo scale ah waaye. markaan waxaa dhihi karnaa waxaa arkaynaa circles badan oo ku jiro mid yar. waxa uuna muujinayaa in kuwa waaweyn laga hor arki karo midka yar. haddii aan wax ka bedelno midabka sidaan ayuu noqonayaa. tusaalahan waa midka hadeertaan aan midabka ka bedelnay. wuxuu noqday circle oo midabkiisa yahay iyo circles kale oo geesaha ka jiro asagana midabkooda yahay khafiif yani. marka indhaha marka koowaad waxay qabanayaan circleka yar ee madowga ah ee gudaha ku jiro. marka hierarchy oo color ahaa ku jirnaa isticmaalena weli. tusaalahan kale waxaa ka arki karnaa hierarchy oo midab ah yani weli colorska u isticmaalena, laakiin tookadan waxaa arki karnaa qaybta dhexda ku jirto in fast yani indhaheena ay qabanayaan marka koowaad markii laga soo tago qaybaha geeska, sababtoo ah markasto waxay indhaha u jeedaan ay qabanayaan qaybta dhexe ay ku jirto ee madowda ah. hierarchy-an waa hierarchy depth ah. marka hierarchy waxa u isticmaalna midkan ama ay isha qabanaysaa midka hoos ku jiro ee dhaaga ah midabkiisa ay qabanaysaa. marka depthiga qaybta hoose oo shadowga ku jiro midkaas ayay isha qabanaysaa. kaasaana waxa u isticmaalnay isagoo depth ah. waa kana asagana sidoo kale markaan waxaa loo sameeyey depth shadow oo kale, laakiin qaybta hoose waa daciif, qaybta sarena waa dhaag. marka indhahaga waxay hor qabanayaan marka koowaad qaybta kore. tusaalahan kale oo colorska ku saabsan, markaan waxaa arkaynaa colorka midka u horeeyo, shape-ka u horeeya oo kale wuxuu u muuqdaa mid yani indhaha naga soo galaya oo noo soo dhow, haddana wuxuu u muuqdaa yani mid kusii xigo, sii milmaayo oo sii baaba'ayo. tusaalayaashan kale isla eegno waxay muujinayaan mid kastaba doorka uu ku leeyahay hierarchy. bal aan galno tusaalahan koowaad. waxaa haysanaa ama arki karnaa tusaalahan mid index leh oo yani marba mar ka dambeyso oo wuxuu sheegayaa in loo sii socdo qaybta hoose, yani numbersuu leeyahay. sidoo kale ciwaano iyo ciwaano hoosaad oo bold ah ayuu leeyahay, yani midba mid kale bold u kasiiyahay. sidoo kale meelaha muhiimka ah ee calaamadsan si fiican ayuu iskula shaqaynayaan markii loo eego listiga. hierarchy waxaa loo isticmaalay halkan hab contrast, alignment, space, color iyo typeface ay u isticmaalaan. dokumentiga noo muuqdo kale intaasba waa loo adeegsaday.
tusaalaha xiga waa tusaale fudud oo qaabaynta dukumentiga inoo sheegayo. waxaa haysanaa messenger oo kala ah type alignment iyo type face, yani farta oo alignment loo sameeyey, sidoo kale farta la isticmaalay oo kala duwan iyo sizekeeda, sidoo kale weightka farta oo la isticmaalay iyo colorkeeda. intaasoo dukumentiga ku arkanaa laga soo bilaabo ciwaanka kore oo far waaweyn ah, next ciwaanka kusii xigo, baragraafka ku xigo asagana far gooni ah, midka kusii xigo oo asagana qaab kale u qoran, ciwaanka kale ee dhexda ku yaala asagana alignmentigiisa wuxuu ku aadan yahay midka kore. marka intii aan sheegnayba way ka muuqdaan. midabadana waa arki karnaa oo qaybtan dhexe waxaa ka arki karnaa midabada qaar ka mid inuu yahay dhaag, qaybta kalena ay tahay xoogaa daciif. tusaalaha xiga waxaa arki karnaa ama haysanaa letterhead. waxay ku timaadaa noocyo kala duwan ama noocyo kala duwana loo samaysan karaa. waxaa loo isticmaalaa ama lagu muujiyaa brandiga ama loogada, yacni ganacsigaas uu leeyahay. loogada waxaa la geeyaa qaybta sare ee bidixda ah. waxay u muuqataa mid aad u qurxan. dhanka midigta waxaa noogu yaala adresska shirkadda, yacni baragraafkana waxaa lagu alignment gareeyay ama yacni lagu hagaajiyey midigta, yacni qaybta midigta, kaasoo marka contrastigeeda aad u fiican yahay markii loo eego fariin gudbinta. contactiga muhiimka ah ee shirkadda waxaa la dhigay qaybta hoose. aan isxasuusino marginka xoogaa in uu weyn yahay ayaa la moodaa. midaas waxay ku tusaysaa negative space oo qurxan inuu meesha ku jiro. waxaa ka sheekeynaya waa qaybta bidixda, yacni baragraafka markuu dhexda yaala qaybta bidixda kale waxaa ka arki karnaa negative space inuu ku jiro, kaasoo sameynayo designkaaga ama ka dhigayo mid nadiif ah oo na siinayo si wanaagsan inaan u aragno loogada. qaybta hoose ee waraaqda waxaa ku xusan qofka soo diray xogtiisa. sidoo kale waxaa haysanaa stroke line oo horizontal, kaas oo kala qaybinaya qoraalka. waa mid yaryar, maahan mid oo qasaya kuwa kale. tusaalaha xiga waxaa ka arki karnaa illustration ama composition. qaybta koowaad waxa uu u muuqdaa sawir, yacni si total markii loo fiiriyo wuxuu u muuqdaa sawir geed oo kale. waxaa aragnaa in jaantuska ama sawirkan oo infografiga ah uu ka bilaawdo qaybta hoose, uu ka bilaabanaya xogta midba midka kale oo kalarkiisa kasii daciifsan yahay ayuu jaranjar ahaan saas u socdaa. marka qaybtaas waxaa dhihi karnaa infografiga waxaa u isticmaalnay in qaab colors u kala saraysiino. kalarka dhaaga hoos ka bilaabanaa, dhaaga midka kusii xigo oo daciifka ah, kan kusii xigo ilaa iyo laga gaaro meesha u sarayso. qaybta hoose markaa fiirin ayada waxaa yaala line, sidoo kale waxaa hoos sii yaala qoraalkaas marka wuxuu noo sharxayaa infografiga meesha noo yaala, numberskiisa iyo mid kastaba magaca uu leeyahay. tusaalaha waxaan ka arki karnaa kala saraynta in ay ku bilaabatay inay riixday xuduudaha si loo sameeyo layout. waxaa haysanaa marka hore number pageka ku taxan ee muuqda. kala saraynta habo badan ayay u jiri kartaa. farta haba yaryaraato, balse waxaa la barbar dhigay ciwaan ka weyn, waxaana sii muujinaya midabka ka caansan midkan. sidoo kale loolama dhaqmaayo mid gaar ah ee waxaa loo aqoonsanayaa hal column oo dhex goonayo taytalka markaas ku jiro meesha. tusaalaha xiga waxaa inoo muuqdo hierarchy oo ah ciwaan weyn, midka kale oo yar, iyo qaybta baadhiga oo ah mid column ahaan loo geliyay. tusaalaha xiga waxaa arki karnaa sawir qof dumar ah ay tahay midka u sareeya kadib ciwaanka ka dambeeya. saddexda ugu muhiimsan ee uu ka kooban yahay waa title ballaaran, sawir, magazine ciwaankiisa. waxaa kale oo inoo muuqdo sirkal yar oo ciwaan farwaaweyn ku qoran oo dadka dhiirigelinaya in ay iibsadaan si ay u akhriyaan ciwaanada kale. tusaalaha xiga waa newspaper. waxa uu ina wada tusayaa dhammaan ciwaanada waaweyn. newspaperka sida uu kala horeeyo ciwaanada ayaa loo soo kala saaraa, waxaana la sameeyaa oo la siiyaa space badan sida midkan sawirka ku ag qoran, yani sawir iyo title weyna ku yaala meesha. waxaa halkan inoogu eg qodobka labaad ee design principle. haddaba isweydii, hierarchy ma uu tixgelisaa designkaaga? sensitive ma yahay hierarchy? visual marka abuuraysid sidee ayuu kula yahay dhanka designka qodobkan? ama hoos noogula wadaag fikir iyo aragti waxa ahayse. waa inuu cashirka xigo. mahadsanid.